horumarka berbera iyo doorkii madaxweyne Axmed Siilaanyo ayay warbixintani dul istaagi doontaa. Inkasta oo raadinta aqoonsi caalami ah ay ahayd himilada guud ee madaxweyne kasta oo Somaliland soo maray, haddana la rajeynayo in muddaxileedka madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ay keento guulo la taaban karo oo aqoonsigu ugu horeeyo. Warbixintan waxay si gaar ah u dul istaagaysaa berbera, goobta ugu weyn ee Somaliland fursadaheeda ay ugu iibgeynayso aqoonsi ay kaga hesho beesha caalamka, iyo kaalintii muhiimka ahayd ee uu ku lahaa madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo Allah u naxariistee horumarka halkaasi ka hirgeliyo berbera intii uu socday dagaalkii qabooba waxay noqotay goob istiraatiiji ah oo quwadihii waaweynaa ee Mareykanka iyo Midowga Sofiyeeti ay si weyn u daneynayeen. Midowga Sofiyeetiin ayaa xilligaasi saldhig ciidan ka dhigtay berbera, taasoo sare u qaaday muhiimadda ay magaaladu lahayd istiraatiijiyadda gobolka iyo badweynta badda cas. Mustaqbalka berbera waxa uu markaasi ku xidhnaa loolankii caalamiga ah ee quwadaha dunida, taasoo si dadban u saamaysay qorshayaashii horumarineed ee halkaasi ka hirgeli lahaa. dabayaaqadii 1960meeyadii iyo horaantii 1970meeyadii Imaaraadka Carabtu waxay bilaabeen mashaariic horumarineed oo ay ka mid ahayd dhismaha wadada muhiimka ah ee isku xidha Burco iyo Berbera. Madaxweyne hore Axmed Siilaanyo Allah u naxariistee oo xilligaasi ka tirsanaa xukuumaddii Siyaad Barre ayaa door muuqda ka qaatay xaqiijinta in mashruucan uu si toos ah u fuliyo Imaaraadku halkii uu gacan geli lahaa Siyaad Barre oo lagu tuhumayay inuu musuqmaasuqo kuna takrifalo mashruuca muhiimka ah. Go'aankaas waxa uu ahaa mid muhiim ah maadaama wadadu ay noqotay laf-dhabarta isku xidha gudaha dalka iyo dekedda berbera, taasoo asaas u noqotay kobaca dhaqaale ee xigay. sidoo kale madaxweyne Siilaanyo waxa uu kaalin muuqata ka qaatay hindisihii lagu dhisay warshadda sibidhka berbera, taas oo loo arkayay mashruuc dhismeed iyo dhaqaale oo muhiim u ah Somaliland. inkasta oo Siyaad Barre uu ka hor yimid qorshayaashaas, Siilaanyo wuxuu ahaa codkii ugu weynaa ee ku adkaystay in berbera hesho warshado iyo kaabayaal culus oo u gogol xaadha mustaqbalka horumarka dhaqaalaha. markii uu xilka la wareegay 2010kii, madaxweyne hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu hirgeliyay aragtidii uu muddada dheer qabay oo ahayd in ay berberi noqoto muraayadda Somaliland iyo albaabka ay dunida kula tartanto. si arrintaasi u rumowdo, waxa uu xukuumaddiisii u jiheeyey sidii berbera loogu soo jiidi lahaa maalgelin caalami ah, gaar ahaan ka timaada Imaaraadka Carabta iyo shirkadaha waaweyn ee gobolka. heshiisyadii la saxay muddadaasi waxay berbera ka dhigeen xarun istiraatiiji ah. dhismaha dekedda berbera oo ay maalgelisay DP World, Berbera Corridor oo ah wadada isku xidha berbera ilaa iyo Itoobiya, aagga cashuuraha ka caagan ee loo yaqaano Free Zone-ka ee berbera, casriyeynka madaarka berbera iyo dhismaha kaabayaasha kale ee ganacsiga, iyo saldhigga militari ee Imaaraadka oo qayb ka noqday iskaashiga istiraatiijiga ah ee gobolka. dhaxalka siyaasadeed ee madaxweyne Siilaanyo Allah u naxariistee wuxuu waajahay dhaleecayn iyo caqabad siyaasadeed, balse waa ku adkaystay in heshiisyadaasi yihiin kuwo dhaxal gala oo mustaqbalka Somaliland u furi doona fursado dhaqaale iyo kuwo diblomaasiyadeed. maanta berbera waxay u adeegtaa sidii xarun ay Somaliland u iibgeyso istiraatiijiyadeeda, dhaqaalaheeda iyo mustaqbalkeeda aqoonsi raadinta. madaxweyne hore Axmed Maxamed Maxamuud Aadan Siilaanyo oo geeriyooday 2024kii Allah u naxariistee, tacabkiisii maanta waxaa ka dhashay mashaariic caalami ah oo berbera ka hana qaaday, kuwaasoo Somaliland geliyey khariirada ganacsiga iyo istiraatiijiyadda gobolka. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, madaxweynaha xilka haya ee Somaliland, ayaa dhowaan sheegay in aqoonsiga Somaliland uu dhow yahay, isaga oo qiray in tacabka muddada dheer la soo waday uu saldhig u yahay rajooyinka maanta la qabo. berbera oo xadunta istiraatiijiyadeed ee Somaliland waxa ay weli tahay goobta ugu weyn ee ay dunida kula gorgortami doonto mustaqbalkeeda siyaasadeed iyo dhaqaalaba. intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa warbixintan oo Luqmaan Media TV uu ka diyaariyey horumarka berbera iyo doorkii uu ku lahaa Allah u naxariistay madaxweyne hore Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo.